Shiribkani ma aha shiribkii Shiidlo ay dhaqan ahaan u lahayd marka ay beeraha u baxaan ama barwaaqadu u timaado, balse waa mid goobaabin ah oo ay sameynayaan ciidamada xoogga iyo kuwa xureynta Shiidlo oo dagaal kula jira Al-Shabaab. Raashinka kooxdan shirbaysa oo qudhiisa ka mid ah ciidamada ayaa urinaya erayada waxaana ka daba orinaya kooxda. Kusoo abaari afkara kusoo abaari oo ina laga suga 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 Shiribka waa dhaqan soo jireen ah oo ay leeyihiin Shiidlo waxaana ay adeegsadaan xilliyada ay jiraan isu soo baxa iyo waqtiga barwaaqada. Qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidankan shirbaya ayaa inooga waramay. meeshaan waxaan u nimid howlgalkaasoo ah jiinka webiga inaan ka saarno alqaacidada. diyaar muuna okay markaan taas ka soo gudubno waa ogtihiin inta laga soo maray juhdigan aad ma u taagan tihiin maahan ciyaar min lagu keenin meeshaan. insha Allah ta'ala waxaan rajay doonaa insha Allah sida aan wada jecelnahay hadafkan inuu noqdo oo aad hor ugu dhawaajiseen aan hor u socod yeelan doono ilaahay ma aadin waxaan meelaha ku soo harayna inaan ka saari doono haddii ilaahay garaal noqdo. xariiyadan iyo rijaaladan hortooda ka muuqdana waxay diyaar u yihiin cadawga ka hortagaan waa rag u tababaran nin sagaar gaabano intaas la eg duurkan ka soo saaray shabaab mitri 70 mitri 60 duurkan ma soo bixiyo sida wax loo ugaarsado ilaaha bare oo professional koodi waa dadkan wax sida wax loo ugaarsado sida wax loo dhiso sida guryaha loo dumiyo sida loo dabaashto wabiyada ayaga yaqaan. sabab waxaa umaleynaa hortaliyadan ama rijaaladan horteeda ka muuqata si toos ah u wajahaan ninka xaasinimo ku jirta kuma darin laakiin si toos ah haddii loo wajaho waxaa aaminsanahay inuu nin dhuuma kara jirin nin fiilo malaay oo webiga ugu soo bixiyey shabaab geedaha cambaha hoostiisa muuqdaa inuu ka bixiyo. cid meeshaan ka xeeran ma jirto cid kasta oo ummadda rasuul ah oo dhiwayso in cadaabadan laga bixiyo guulooshinkaayna dadkayna dhibaatay haayo dadkayna gumaadaan in kastoy dhibayso deegaankan oo xawaaley iyo intii u xeeran waa ka sugnaa ilaahay raado. muddooyinkan dambe waxaa deegaanada jiinka ka soconayay dhaqdhaqaaq dagaal oo dadka deegaanka ay wadaan iyaga oo qaashanaya ciidamada qaranka sida.
محمد ياسين مهدي محمد القلفة يونيفرسال تي في deegaanka xawaaley gobolka shabeellaha dhexe